tintina waa ka jaray waxaa kaliya idinka rabaa oo mar kale idinkugu celinaa shalay markaa muuqaalka ka soo duubay wejigiisa niitusaaya xaalad adigoo ku jiray xaalad walaal iyo waalid laga qari karo kuma uusan jirin xaqiiq waayuu dhooya hadalkiisa maqal waa idin dhabeynaa maantana caafimaadkiisa boqolkiiba boqol wuu ka soo fiicnaadayoo ilaahay subxaana watacaala hadalkiisii u soo celiyey ilaahay subxaana watacaala salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu youtube-ka daawanaysaan waa Ismaaciil Time TV fadlan hadday tahay booqashadaada kugu horeysa waxaan kaa codsanayna youtube-ka inaad subscribe noo saarto haddaad hormeel joogteen aad iyo aad kaaga mahadcelinayna la joogaaga kusoo dhawaada muuqaal cusub intaan muuqaalka idin soo deynin aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa asxaabta cusubna aadaan usoo dhaweynayaa maadaama youtube-keeni aad iyo aad u korayo waxaan leenahay asxaabteena soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada welcome meel idinka la jeceliya meel idinka jeceliya kusoo dhawaada markaa kusoo dhawaataan youtube-keyga waxaan laga baahan yahay waajibaad yaryar aad u fudud aanan baahsani laga rabin waajibaadkaasna waxaa ka mid ah muuqaalkan hadda aad daawanaysa inaad like noo saarto asxaabtaadan aad la wadaagtid afkaarna haddii muuqaalkan ay ka dhex heshid hadduu ku cajibiyo wixii ra'yina xagga hoose ku dhiibo intaana muuqaalka niisoo gudbinin saad kusoo aragteen hordhici hore qof walba hordhici hore oo soo arkay wixii muuqaalkan laga damacsan yahan oo soo daawaday bal idinka hordhicin yaan idinka hordhicin muuqaalka guud yaanba khulaas idinka siinane bal kusoo dhawaad muuqaalka inuu faahfaahsan tintina waa ka jaray waxaa kaliya idinka rabaa oo mar kale idinkugu celinaa shalay markaa muuqaalka ka soo duubay wejigiisa niitusaaya xaalad adigoo ku jiray xaalad walaal iyo waalid laga qari karo kuma uusan jirin xaqiiq waayuu dhooya hadalkiisa maqal waa idin dhabeynaa maantana caafimaadkiisa boqolkiiba boqol wuu ka soo fiicnaadayoo ilaahay subxaana watacaala hadalkiisii u soo celiyey ilaahay subxaana watacaala hadalkiisii u soo celiyey wuu hadli karaa maanta beri waxaa rajaynaa haddii ilaahay nafta ii daayo asagana ilaahay u daayo caafimaadkan ilaahay noo daayo asagana ilaahay u daayo waxaan rajaynaa asagoo soo fadhiya oo soo fadhiistay tinta u jaran tahay garka u jaran yahay idin la hadli karo wuxuu idiin sheegi rabo uu idiin sheegi karo aan soo fadhiisanaa markaasaa arkiisii u jimisa maxamedow maxamed abow mid maqashaa yaa okay anigoo kula joogay ma kaa tagin inta lii ogol yahay inaan kuu imaadaan kula joogay mar walbana waa kuu imaanaa waana kula joogaa keligay ma ahan qof kasta ee ku maqlaayo ee muuqaaga iyo magacaaga aan gaarsiiyey way kuu soo wada duceeyeen kulligood ma maqlaysidoo yaabow maalinka jimcadana haddii ilaahay nafta noo daayo neefaa lagu qalaa 114 qur-aanka lagu aqrinaa dhammaan dhallinyaradii magaalada kula degnaayeen way isku wada imaanayaan kulligood calooshay ku wada furaayaan way ku wada duceynayaan macallimiinta dugsiga kuu balamiyey mii maqlay abow adigana waxaa samaynay shalana waa kaa codsaday oo madaxa igala hadlaysa maanta waxaa rabaa afkiina igala hadashay qof kasta inaa iska cafisidaa rabaa ma cafisi yaa abow maxamed mii maqashaa si fiican ay dhowsaa qof walba oo walaalkaa shalay ahaa walaasha ahayd iska cafi dadka dhan caloosha u rafo iyagana way ku wada cafiyeen waliba iyaga cafiska duciga kugu soo dareen inay kuu duceeyaan inay ilaahay subxaana watacaala kuu baryaan inuu caafimaadkaaga kuu soo celiyo inuu ilaahay jaanis labaad nolosha kuu siiyo wax wanaagsan aad qabsatid facaaga aad dhex oradid aduu quslaya lagu arko mii maqashaa maxamed yaabow mii maqashaa maasha Allah madaxu iga ruuxa waa kale ay intaas idin soo sheegi rabay aniga marka ka caruush ahaan inaan idin la hadla rabaa ka caruush ahaan ma idin la hadli karaa aniga ka caruush ahaan idin la hadla wiilkan walaalkeena ee xanuunsan shalay caafimaad darada haysato social media ka aragteen anaana soo geliyey anigana hal qof ahayoo 10 qof ma naqi kari mana iska dhigi karo wax walboon sameeyo
ruuxana markuu dadaalo wixii markuu joogtay bini aadana waxaa u nahay daciifa u nahay hal qof iyo laba qof iyo 5 qof iyo 10 qof telefoon ma kula hadli kari waa xaqiiqo leeyahay hadalkiisa dhageysta hal qof iyo laba qof iyo 5 qof iyo 10 qof telefoon ma kula hadli kari hore maxaa loo yiri asaad loo isoo hore maxaa loo yiri baryo badan iyo bugta badan wala isku nacaa asaa wuxuu dhahoyaa hore waxaa loo yiri baryo badan iyo bugta badan wala isku nacaa asaa dhahoy hadlo marka waxaa idinka codsana aniga telefoonka koolka iga daaya haddaan telefoonka idinka qaw waayo ha ii xumaanina shalay walaalkan waxaa ka ogaatay xaaladiisa social media daqiiqad anaa u soo dhigaayo daqiiqad xaaladiisa anaa idinla soo socodsiinayo daqiiqad anaa ula joogo aniga shakhsiyan caruushi haddaa inaa ila hadashid rabtid xili kale ila hadal wallaahi saaka salaada subax markaa tukanahay labadeedii xis labadaas meel waxaa u qabtaa camba baaquli la dhex geliyo saas u wareegsana camal madaxa waa qaadi waaye saaka markaa salaada subax tukanahay madaxa waa qaadi waaye kama fikiraynin ani xanuunkayga kama fikiraynin wallahi waxaa ka fikiraya maxamed soo noqon doona xaaladiisa salaadaas waxaa iska tugtay indhihii dhan ay madoowaadeen madaxi dhan ay soo dhacaaya telefoonka tirada badan aan ku hadlayo waayo quraana iska akhristay waa seexa waaye biyo badanaa caawa kaniinin guriga mii oonin biyo badanaa caawa sariirta xooga ku noqday madaxa aad ii xanuunaya indhihii dhan i madoowaadeen marka dambe waa seexday anoo faya iska soo kacay cunaa meelaha ka raaraadsaday xabad kaniiniya cuna haddan anoo caafimaad qaba caafimaadkayga taama imaaday marka waa idin baryaa telefoonka faraha badan iga dhaafa kulligiin ma idin wada jawaabi kari kulligiin waqti ma idin wada sii kari wiilkan xaaladda uu ku jiro social media ka ogaatay anaa 24/7 isku dayay inaa intaasoo boqolaal oo qofooda walaala ka walwalaysa usoo gudbiyo marka aniga si gaar ah iisoo abaarina si gaar ah iisoo wicina haddaa wiilkan qabiil iyo waxyaalo kale ah igu soo wicaysan hab isoo wicinba waa wiil Soomaaliyeed waa wiil xaalad adag ku jiro waa wiil xaalad bini'aadanimo ku jiro waa wiil cid walba oo maanta xaaladiisa iyo xanuunkiisa la qaybsanaysa dad u xigo dad u eelo wax ha ii soo raadinina waxaas insha Allah maanta markuu sidan ka sii caafimaado dadaal nooma yaro quruxdiisa ee soo noqotane markaas wajigiisa idin tusaa shalay maahna darad xaalad uu ku jiray Friday xaalad kale uu ku jiray jimcadii maanta xaalad kale uu ku jiray maantana xaalad ugu fiicneed uu ku jiraayo asaga hadlaayaba asaga oo sariirta saaran hadlaaya aniga dhiirigelinaya idinkan idin dhiirigelinaya idin hadlaaya hal mar hooyadii ay soo wacayso ani hooyadii ay soo wacayso hadlaa hooyadii rabtay inay kula hadasho shaabo ilaahay waxaan u weydiinaa ilaahay maxaan u weydiinaa hooyadu aad inaan loo qabo waxaa ka mid tahay محمد المرزوق عليا هو إلهي وحنا ودينا هاي دعاء إنه نقبل عليا هاي السلام عليكم عليكم السلام أنت متكوش كجيرات ما يسوي هذا هاي معنا هاي أداي أنا كسوة مركبين كسوة بحي هيك هاي ما تور فرحت لها قوة إلهي سبحانه وتعالى هاي دعاء هذا هو أقبله لما ولا لها دعاء هاي إلهي هو أقبله walaalkay maxamed waxa uu imaado hooyo hadlaayo oo ila hadlaayo oo yaqaan oo magaciisa sheegay oo abtirsanaay oo ani magacayga sheegay oo hooyo oo muddo 9 bari kadib hooyo caadi ila hadlaayo oo soo laabtay ma fahanti ما شاء الله وإيمان إلى أجرك عسي إلى أجرك عسي آوي ولا جوبت هذا هاي ولا جوجا وكل جوجا سيف عم هذلك هاي أبالك وحى كوجو هاي أبالك وحى كوجو ما قاني شال هذا أنا كلي أوين هو لايف فيديو مكودي ها وكوفرا فيديو أقبل هاي أقبل أنا كوس هدري شال هذا أنا كلي أوين كها هاي وعكارة مات محمد إنه هاي ويل كعمر أو نقضه sida aan igu duceynaysid ii garab taagantaa asan inaa garabkiisa u istaagtay
hooyo hooyo waa kana waa ujeedaa maho wuu fiican yahay hooyo maanta alxamdulilah wuu ku maqlaa hooyo hadda inaa la hadasho darteed la hadal maxamed hooyadii la hadal abuu maxamed hooyadii rabta inay kula hadasho la hadal hooyo محمد hooyo يا عافماد الله كسي آدم كوكو فرحة والله آدم كوكو فرحة إلهي عافماد كسي عدونا الله إذن كقبته عدونا الله إذن كقبته عروشو طلابة قادوي طلابة فرحة واي إلهي وعن كاغا بري انت حاسد كاغا أنا عكتو استاذ إني قلان انت كوكو راعسن وناكاس أصفنا السنة إلهي أجرك سيهوي معاك hore u soco gadaala fiirin hortaada u soco gadaala fiirin hooyo ani adigo isku hooyo ani inuu kaaga qaado hooyo macaanta caafimaad sareeca inuu ku siiyo amiin hooyo maya waxaa rabaa ani adigo isku soo noqonaynaa hooyo dhawow ku soo wacaa maxamed inaa u sheegtid hooyo intuu adduunku dul saaran yahay inaa wiil aa dhib la-aan dhashay oo kalow yahay inaa anigu kuula simanahay inshallah hadda ani keligeyga dhashay maanta in ani asi kuu simanahay waa wiil soomaaliyeed hooyo waa wiil dhibaataysan waa wiil asoo yar hooyadiisa ee geeriyootay oo inaa u sheegtid booska aa kuu joog inaa u joogtid asaga la hadal anaa garabkiisa taagan adiga isaga hal faraatiina hal faraatiin anaa idin dhalay ilaahay israacays walaashada gacmaha isqabsatada caruushow tallaabada qaada waa tallaabad aad loogu farxooyo aad tallaabo loogu farxooyo hooyo asaga la hadal labadiinaba waa idiin duceeye ilaahay waxaan ka baryaa iyo rasuulkiisa in ilaahay laba aad bidig iyo bidix noqotaan walaalo isla dhashaatihiin amiin hooyo waxaa kaa rabaa hooyo sareecaasi farkii suul allah uga qaado xanuunkaahay farkii suul allah uga qaado hooyo aamiin ducadaada ilaahay waa u aqbalay salaatuleyl inaa hooyo u barisa anigu waa ogahay waxaa kaa rabaa ani adigo isku soo noqonaynaa asaga inaad tartiib ula hadashid wuu ku maqlaa tartiib hadalka aa ka sugtid uu kula hadlo aa sheekaysatiin magaciisa aa weydiisid aa isbaratiinaa rabaa hooyo asaga tartiib ula hadal maxamed mii maqasha abow sug reaction hooyo mii maqlay hooyo hooyo qadkaa ka halaysa mii maqashaa hooyo السلام عليكم maxamed sug abow waa la hadle waa wacaa hal mar oo ku celinaa sugyaa okay iyada isoo wuxuusa sug marka hooyo waxaa sameynaya asaa inaa la hadashid rabaa wuu kula hadlaa hadalka ka sug asaa si tartiib kuula hadlaa iskaa baray hooyo la hadal maxamed mii maqasha abow mii maqashaa hooyadii way la hadal abow salaan abow way ku maqashaa salaan hooyo hooyo adi la hadal wareyso assalaamu calaykum uu ku dhahay hooyo la hadal maxamed mii maqasha abow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معان إلهي أكو عافية إي ورن maxamed محمد عروشو عروش hooyo wax yar kadib seexanaa أدبن دافوي hooyo inaa la hadlo oo la joogo oo waqti siiyo waa dhakhtarka igu dhahay laa kuwa ku maqlaa kuley adi hadda codkiisa waa maqashamo inuu kula hadlo waa maqashamo hooyo هاوي معان داف hooyo استوى haa bes hooyo cabaaraa la joogo hooyo ani waxaa kaa codsanaa ani ada si gaara isku soo waceynaa waxaa kaa codsanaa hooyo macaanta sida ani mar walba ducada ay ila garab taagan tahay oo aa iila hadlaysid
oo wax walbo aniga aan raba hooy booska kaafila iyo booska badan iga soo bixiysa wiilkan hooy ducada ani ii duceynaysa dhan hooy ina asaga siisi ina asaga ku soo koobta ducooyinkaaga ina asaga ku soo koobta inuu ilaahay caafimaadkiisa si taam u siiyo hooy معانا عافماد الله سي فريسول الله وقاضو عافماد الله سي وادعي إلهي وحن كبريا عافماد سريحة إنو سيو أو عاد نقطان لبويل أو إسلام الشيء أنا أهو يدين أهو معانا هوي هدوك هوي هدوك كسوعة هدوك كسوعة أيوه